بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهد Soomaaliya meel kasta ay joogto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago arrimaha soo socda ugu horreyn madasha samatabbixinta Soomaaliya waxay maantay kulan la qaadatay madaxtooyada kula qaadatay madaxweynaha Soomaaliya iyo xubno golaha wasiirada ka socda ama guddigiisa oo xil saarnaa arrimaha wada hadalka. Runtii wareegga hore waxaan soo wadaagnay in annagu aan ka war doono oo aan jawaab ka keeno ama aan la xiriirno labada maamul goboleed ee ka maqnaa badiyahan dambe kulamada dowladda sidoo kalena afar qodob oo asaasiyana aan iskugu soo noqono si looga wada hadlo arrinka la kulanka maamul goboleed waa la soo koonay wax wanaagsan waa la soo gaarnay madaxweynaha waxaan u gudbinay dareenka ay qabaan gaar ahaan Jubbaland ee ku aadan imaanshaha iyo ka qaybgalka shirka dhaca magaalada Muqdisho taas arrimahaas oo ay ku aadan ay qayb ka ahaayeen ama cunaqabatayntii xagga duulista ahaa ama budget supporting ama maaragtay taageeradii kaalmada caalamiga ay keeni lahaayeen iyo waxyaabo kale arrimahaas waan u gudbinay jawaab waafiya ma aan helin laakiin haddana waan gudbinay taas markii laga yimaado waxaan u gudubnay arrimihii afartii qodob ee asaasiga ahaa ee kala ahaa kow arrimaha nabadgelyada dalka saddex arrimaha dastuurka afar arrimaha doorashooyinka labada qodob ee ugu horeysay midnimada dalka waxaan u sheegay dowladda in ay qorshaha la timaado annaguna aan ku garab taagannahay wixii anaga kalankeena ah siday u meelmar u noqon lahayd dowladda Soomaaliya qodobka labaadna waxa uu ahaa waan runtii aad iyo aad ugu taageero dowladda inay la timaado aragtiyada ku aadan annaguna aan garab istaagayno waa arrimaha nabadgelyada ama la dagaalanka argagixisada qodobka saddexaad wuxuu ahaa arrimihii dastuurka arrimaha dastuurka runtii aad iyo aad aan uga doodnay laakiin waa isla meel dhigi weynay arrimahaas iyaga ku aadan meel kasto waqti dheer way naga qaadatay la islama meel dhigin sidaa darteed markii dambe waxay kusoo afbeernay iyadoo weliba dowladda ay arrinkaas soo codsatay in waqti ay qaataan oo waqtigaasna uu noqdo 20 bisha inta ka horeyso la isu yimaado waayo aragtiyadeena ku aadanaa in u gudbinay ay waxay noo sheegeen inay u baahan yihiin inay waqti helaan oo ay ku arrinsadaan marka sidaas ayaa maanta shirkeedii ku saabsanaa had iyo jeer waxaan rabaa inay bulshada Soomaaliyeed xasuusino waxaan u taagnaanaynaa in dalka isu yimaado waxaan u taagnaanaynaa dalka inay nolosha ka dhacdo waxaan u taagnaanaynaa dalka waxay isku waafaqsan yahay bulshada Soomaaliyeed isku waafaqsan tahay oo dan ah in loo gudbo waxaan nahay xal doon madasha samatabbixinta haddaan nahay waxaan xalkaas aan doonaynaa waa xal loo dhan yahay macquul ah maanta meesha la joogo kasii wanaagsanaado kulankaas 20 intii laga gaarayana waxaan ka dhul sugaynaa aragti maaragtay dhaxalgal ah oo la aqbali karo oo dowladda ay la timaado maalinka bisha ay 20 ka tahay aad iyo aad ayaad umahadsantihiin Soomaaliya waxaan rajaynaynaa guul iyo horukac walaalaheena Soomaaliya meel kastay joogaan waxaan ugu bishaaraynaynaa inaan u taaganahay xal damaanad qaado horumarka dalka midnimadiisa wadajirkiisa aad u mahadsan